dagaalkii labaad ee dunida guuldarradii qanaadhay shantii iyo barhkii subaxnimo 10kii bishii January sannadkii 1940 ayay ahayd markii ciidamada Jarmalku ay bilaabeen duulaankii ay ku qaadeen dalka Faransiiska. ciidamada baarashuudka ku boodaya dalka Jarmalku waxay ku soo daateen ciidda dalka Holland waxaana markiiba dagaal galay 1 milyan oo askari oo ka mid ahaa 3 milyan ee askarta Jarmalka ahaa ee weerarka qaaday kuwaasoo dhaqaaqooda looga dan lahaa in lagu majara habaabiyo saraakiisha sare ee ciidamada Faransiiska oo aan fahmin khiyaamadii Hitler u sameeyay kaartadiisa dagaalka iyagoo saraakiisha Faransiisku u qaateen ciidamada Jarmalku ku soo jihaysan yihiin dhanka dalka Belgiumka si ay docda uga weeraraan dalka Faransiiska sidii ay horeba u sameeyeen sanadkii 1914 taasi waxay keentay in General Gamelin oo hogaaminayay ciidanka Faransiisku uu dejiyo kaarto uu kaga hortagayo ciidamada Jarmalka ee weerarka soo General Gamelin reer Faransa waxa uu cududii u weyneed ciidamadii uu haystay oo ay wehelinayeen ciidankii Ingiriiska ee Faransiiska joogay u dhaqaajiyay dhanka dalka Belgiumka si uu uga hortago ciidanka Jarmalka ka hor inta aanay xuduudda Faransiiska soo gaarin. Adolf Hitler waxa uu xilligaa aad ula dhacay sida ay ugu guuleysatay kaartadiisii military ee khiyaamada ahayd waxaana uu raggii kalkaaliyeyaashiisa ahaa u sheegay inuu u dhow yahay inuu farxad darteed iska ooyo. xilligaana Adolf Hitler waxa uu amar ku siiyay taliyihiisa ciidanka cirka inaan la duqeynin kolonyada ciidamada Faransiiska ee dhanka dalka Belgiumka ku soo wajahan si ay u suura gasho in la dabamarteeyo oo dhabarka laga weeraro kaasina waxa uu ahaa weerarkii dhabta ahaa ee uu Adolf Hitler ku qaaday dalka Faransiiska. haba yaraatee ma jirin wax difaaca oo ay la kulmeen ciidankii Jarmalka ee weerarka qaaday mana jirin wax cidhiidh ah oo ay dareemayeen marka laga reebay inay isxanibeen gaadiidka faraha badan ee ay wateen dadweynihii Faransiiska iyo kuwii reer Holland xilligaa waxay bilaabeen inay ka cararaan colaadda ku soo fool leh waxaana dadweynahaasi si weyn uga baqayeen xoogaga loogu magac daray safka shanaad oo ah sirdoonkii Jarmalka ee sida qarsoodiga ugu sugnaa dalweynaha Faransiiska. ciidamada Jarmalku waxay sii wadeen duulaankoodii dhanka cirka oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada baarashuudka ku booda iyo ciidamo kale oo isla dhanka cirka ah oo si gaar ah u tababaran. ujeeddada ciidamadaasi waxay ahaayeen qabashada kanaal biyoodka Arbel ee dalka Belgium kaasoo u muuqday difaaca kaliya ee ka xiga magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. tallaabada military ee ay xilliga kooban ciidamada Jarmalku gacanta ugu dhigeen kanaal biyoodkaasi waxay muujisay in ciidamada Jarmalku yihiin quwad ay adag tahay in la iska joojiyo. gelitaanka ciidamada Jarmalku ay gudaha u galeen magaalada Lech waxaa ka dhashay warwar iyo cabsi dheeraad dadweynihii Faransiiska ay ciidamada Jarmalku qabsadeen magaalooyinkoodii waxaa xilligaa u taalay laba midkood waa inay isdhiibaan ama ay cagaha wax ka dayaan oo cararaan. tiro badan oo dadweynihii deegaanadaasi ahaa ayaa bilaabay nolol barakaca iyagoo beeralaydu ahaayeen kuwii ugu dambeeyey halkaasi ka ambabaxa kadib markii ay muddo ka hagaagi waayeen beerahoodii iyo xoolahoodii ay dhaqanayeen. xilligaa gabyaagii caanka ah ee u dhashay dalka Belgiumka Master Emil Farhan ayaa xilligaa sifeeyey xaaladii adkayd ee bulshadaasi ku sugnayd. dadku halkan haba yaraatee waxba kuma haystaan halkay ku socdaanna waxba uma yaalaan marka laga reebo jid dheer oo madhan oo ay sii mari doonaan jidkaasi oo aan iyaga u lahayn bar uu ku dhamaado
runtiina waxay ku jiraan dhibaato aanay hore ula kulmin. weerarka dhanka cirka ay Jarmalku ku qaadeen dalka Faransiiska waxay ku burburiyeen oo ku baabi'iyeen kaabayaashii nolosha sida wadooyinkii muhiimka ah, garoomadii diyaaradaha, warshadihii sifaynta batroolka iyo haamihii kaydka shidaalka. inta badan waxaa la duqeeyey magaalooyinka Faransiiska ku yaalay waqooyiga iyo bariga waddankaasi. xilligaana Faransiisku waxay dhab ahaan u waajaheen dagaal ka mid ah kuwa ugu casirsan. dhanka dalka Holland ciidamadii Jarmalku waxay duulaankoodii ku gubeen magaalada Rotterdam, taasoo loo duqeeyey sidii magaaladii Warsaw oo kale. inkastoo duqeyntii qumbuladaha goor dambe la joojiyey kadib markii ay isdhibtay magaalada Rotterdam, waxaana lagu sheegaa in duqeyntii magaaladaasi ahayd mid ka mid ah dembiyadii dagaal ee ay galeen Hitler iyo ragiiso. dhanka magaalada London halkaa waxaa ahaa ra'iisul wasaarihii cusbaa ee Britain Winston Churchill, waxaana khudbadiisii u horreysay ee uu xilligaa u jeediyey caalamka uu ku xusay inay lama huraan tahay in colaadda la sii wado duruuf kasta oo taagan. shaki la'aan waxaanu leenahay waxa ku dhacay Belgium iyo Holland waxba kagama duwana wixii ay la kulmeen dalalka Poland iyo Czechoslovakia. arrintuse waxay u muuqatay mid maalinba xigta ku sii xumaanaysay dalka Faransiiska. muddo 3 maalmood oo kaliya ciidamada Jarmalku waxay ka tallaabeen xuduudda dalka Faransa. ciidamada Jarmalku waxa uu suura gashay inay daba maraan ciidamada xulafada ee isku urursanayay ciidda dalka Belgiumka, inkastoo ay iska horimaad kala kulmeen ciidamo Faransiis oo ku sugnaa tuulada Sedan. goor dambe si ciidamada Jarmalka ee duulaanka ah oo adeegsanayay bombooyinka gacmaha laga turo iyo boobayaasha culus waxa uu suura gashay inay jibiyaan ciidankii Faransiiska ee halkaa difaaca kaga jiray. webiga Nees ee halkaa ku yaala ayaa ahaa caqabadaha kaliya ee hortaagneed ciidamada Jarmalka, waxaana xilli habeennimo ah ay bilaabeen inay adeegsadaan geedaha looxa laga sameeyo oo halkaa ku badnaa si ay webiga uga tallaabaan, laakiin waxay duqeyn dhanka madaafiicda kala kulmayeen ciidan yar oo Faransiis ah. subaxnimadii ku xigtay ciidamada Jarmalka waxa uu suura gashay inay ka takhalusaan ciidankii Faransiiska ee webiga dhankiisa kale difaaca kaga jiray, waxayna si rasmi ah uga tallaabeen webigaasi iyagoo adeegsanaya kaartada ciidan ee uu dejiyey General Guderian. kaartadaas oo qayb ka mid ah lagu qoriyo biriijkii halkaa ka dumay. General Guderian oo lagu tiriyo saraakiishii dagaalka khibradda u lahaa ciidamada Jarmalka waxa uu aaminsanaa ku dagaalanka xuduudda taangiyada iyadoo duqeynta madaafiicda harka lagaga dhigayo goobaha cadowga difaaca kaga jiro, isla markaana Jarmalku waxa uu ka taxadarayay in ciidamada Faransiisku fursad ka helaan duulaanka degdega ee ay Jarmalku ku daba marteeyeen ciidamadii xulafada ee ku sugnaa dalka Belgium. taangiyada ciidamada Jarmalka oo ay daba socdaan guutooyinka ciidanka lugtu dushana ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalku ayaa ka gudbay biriijkii webiga Nees. diyaaradaha dagaalka ee Stuka oo duulaanka ka qayb qaadanaya waxay ahaayeen diyaaradaha waaweyn ee xambaara gantaalaha, kuwaas oo ku rakibnaa qalabka bixiya digniinta degdega. duuliyaashii tababarnaa ee diyaaradahaasi duulinaya waxay bilaabeen inay sameeyaan duqeyn culus oo lala eeganayo aagaga lagu toonsan yahay ciidamo Faransiis ah. xilligaana ra'iisul wasaarihii Faransiiska Paulo Dreiner waxa uu waraaq u diray ra'iisul wasaarihii Britain Winston Churchill isagoo u sheegay in dagaalka lagu jabiyey, khasaare ballaaran soo gaaray dalka Faransiiska, iyadoo jananadii hogaaminaya ciidamada Faransiisku ay u muuqdeen kuwo aan hayn wax qorshe ah oo dagaal oo lagaga hortagi karo ciidanka Jarmalka ama ugu yaraan lagu hakin karo duulaankooda, iyadoo cududii ciidamada xulafaduna ay ku go'doonsanaayeen gudaha dalka Belgium. guuldaradii xilligaa gaadhay ciidankii Faransiiska waxay ka dhalatay hadalhayn ku saabsan inuu isdeldelay jarankii ciidanka Faransiiska General Gamelin, laakiin jaranka oo ka dherigsanaa in ciidamada Jarmalku ay beegsanayeen dhanka xeebta waxa uu dejiyey qorshe ay ciidamo kale oo Faransiis iyo dhabarka kaga soo weerarayaan si ay u jabiyaan go'doonka lagu hayo cududii ciidanka xulafada Britain iyo Faransiiska ee ku sugnaa dalka Belgium. 1940
koronel de Gaulle oo taliye ka ahaa qayb ciidan oo Faransiisa ayaa u xil saarnaa inuu bixiyo fulinta kaartadaasi iyadoo taangiyada Faransiisku haysteen ay ka tayo wanaagsanayeen taangiyada Jarmalka ee noocoodu ahaa Panzer. laakiin markii ay taangiyada Faransiisku waayeen wax taakula ciidan oo soo gaadha iyo taageero dhinaca cirka atoonna waxay noqdeen kuwo ay si fudud u ugaarsanayeen diyaaradihii dagaalka ee Jarmalku. inkastoo ciidamadii Faransiisku ay ku dagaalameen taangiyadooda haddana ugu dambeyntii waa la jabiyey iyadoo goor dambe diyaaradihii yaraa ciidamada Faransiisku wateen ay dagaal foolka fool hawada kula galayeen diyaaradihii Jarmalka xilligaana waxaa la qabtay tiro ka mid ah duuliyaashii Jarmalka ahaa. تحركت الدبابات الألمانية بسرعة في ciidamada Jarmalku waxay soo gaareen kanaalka badeed ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Britain waxaana u muuqatay inay kaartadii Adolf Hitler xilligaa guuleystay iyadoo ay ciidamada Jarmalku hareereeyeen oo isku gadaameen fadhiisinkii ugu dambeeyay ciidamada xulafadu ku lahaayeen dalka Belgiumka halkaas oo ay fadhiyeen ciidamada Faransiiska Britain iyo Belgium. 28 bishii May 1940 waxaa isdhibay boqorkii dalka Belgiumka iyo ciidankiisii waxaana dib uga baxay halkaasi ciidankii Britain ee xulafada ka mid ah si ay Faransiisku u soo nooleeyaan kalsoonidii ciidankooda waxaa la casilay General Gamelin waxaana hoggaanka howlgelinta loo magacaabay General Philippe Pétain oo bilada geesinimada hore uga qaatay dagaalweynihii koowaad ee adduunka laakiin maadaama aanu haysan waqti ku filan waxaa ciidankaasi lagu khasbay inay dib uga baxaan aagagii ay fadhiyeen ugu yaraan 400 oo kun oo askartii xulafada ayaa ku go'doomay deegaanada ku teedsan xeebta mana jirin fursad kale oo hortooda taalay oo aan ka ahayn inay badda isku shubaan bishii May 1940 ra'iisul wasaarihii Britain Winston Churchill waxa uu amray in qiimo kasta oo ay ku kacdaba maraakiib loo diro ciidanka si loo badbaadiyo laakiin nasiib darradii haleesho waxay ahayd markii diyaaradaha Jarmalku duqeyn ku baabi'iyeen maraakiibtii doonaysay inay ciidanka go'doosan soo daadgureeyaan qiyaastii 210 kun oo askartii Ingiriiska iyo 150 kun oo ciidamadii Faransiiska ayaa goor dambe laga soo badbaadiyay halkaas. bishii Juun 4 sanadkii 1940 ciidankii Jarmalku waxay qabsadeen magaaladii Danka colaaddu waxay ahayd mid sii socota Faransiiskuna waxay ahaayeen kuwa sii dumaya militari ahaan iyo xuduud ahaanba General Charles de Gaulle oo xilligaa madax ka ahaa wasaaradda dagaalku waxa uu go'aansaday in dagaalka la sii wado tobankii bishii Juun 1940 magaalada Rome wajahanjixe Benito Mussolini oo hogaaminayay dalka Talyaanigu waxa uu ku dhawaaqay inuu dagaalka ku biiray waxaan u gudbiyay ku dhawaaqayga dagaalka safiirka Ingiriiska iyo Faransiiska Mussolini waxa uu hilaacday qaybtii uu ka yeelan lahaa bilolaqaysiga lagu hayo dalweynaha Faransiiska isagoo iska qoontaystay magaalooyin ay ka mid ahaayeen Wadi-on iyo Marsilia isla markaana hubka ka dhiga dabley reer Tunis oo Faransiiska la halmaasho talaabada uu Talyaanigu qaadayna waxay Faransiiska ku macneeyeen inay tahay dhabar jabin cusub oo ciidankooda ku dhacday batalyankii ka tirsanaa ciidanka Faransiiska oo ka soo guuray buuraleyda Alab ayaa isku biimeeyay inay ka hortagaan weerarkii Benito Mussolini xilli ay aaga dagaalka ee dhankii waqooyi ay ciidamadii Jarmalka ee uu hogaaminayay General Rommel ay duqeynayeen mandaqada Normand gudahana u galeen halkaas
xilligan waxaa muuqanaysay in magaalada baariis ay tahay mid u furan ciidanka jarmalka waxayna si rasmi ah maamulayaashooda ugu dhawaaqeen in si nabadgelyaha ay isu dhibtay caasimadii faransiisku si looga fogaado inay la kulanto wax la mida duqayntii iyo burburintii ay ciidamada jarmalku u geysteen magaalooyinkii warso iyo rotterdam oo xarumo u ahaa dalalka Poland iyo Netherland. xukuumaddii faransiisku waxay u guurtay magaalada Bordeaux, ciidankii jarmalkuna waxay ku sii dhowaanayeen magaalada baariis. dadweynihii faransiiska ee deganaa magaalada baariis oo la baqaya hablahooda waxay bilaabeen inay ka qaxaan guryahoodii iyagoo dhammaan bannaanka u soo baxay si ay si wada jira ugu bilaabaan socdaalkoodii markii dambe loogu magacdaray safarkii bixitaanka, iyadoo haweenkii iyo dadkii socon kari waayey ay isku dayeen inay gabaad ka dhigtaan dhulkii beer cawseedka ahaa ee duleedka baariis, laakiin halkaasi ma noqon meel gabaad uga noqoto oo ay kaga nabad galaan diyaaradihii dagaalka ee jarmalka. goor hore oo subaxnimo 14 bishii Juun 1940 ciidamadii jarmalku waxay u dhaqaaqeen oo gudaha u galeen magaalada baariis. waxay ahayd maalintii u horreysay calankii xisbigii naasiga laga taago magaalada baariis oo uu ka dulbabado. waxyaabihii ay markiiba ku dhaqaaqeen ciidankii jarmalka ee baariis qabsaday waxaa ka mid ahaa inay dhismayaashii wasaaradaha ee la cilleeyey ka baadhaan warbixinihii dhanka sirdoonka iyo magacyadii basaasiinta faransiiska ee ku sugnaa gudaha dalka jarmalka, halka sidoo kalena ay si gaara u bartilmaameedsadeen dukumentigii orijinaalka ah ee ku qornaa heshiiskii Versailles oo lagu bahdilay jarmalka sannadkii 1914. dukumentigaas oo ugu dambayntii loo diray Adolf Hitler. xilligaana hoggaankii baxsadka ah ee faransiisku waxay ku tala jireen inay guud ahaanba joojiyaan dagaalka. ciidamadii jarmalku waxay u sii wadeen duulaankoodii dhanka koonfureed. ciidamadii faransiiskuna xilligaa waxay u muuqday mid burburay, inkastoo uu sameeyey wax iska caabin aan sahlanayn, iyadoo ay muddo bil gudahooda ay dhinteen in ka badan 100,000 oo askartii faransiiska. waxaa maxaabiis ahaan loo qabtay 2 milyan oo askartii faransiiska ay wehelinayeen 63,000 oo saraakiila. maxaabiista ciidanka faransiiska ee la qabtay waxaa qayb ka ahaa askartii afrikaanka ahayd ee laga ciidameeyey mustacmaradihii faransiisku gumaysan jiray. xilligaana ciidamada jarmalku waxay dileen ugu yaraan 3,000 oo askari oo ka mid ah ciidankii afrikaanarka ahaa ee faransiiska u dagaalamayey ee maxaabiis ahaanta loo qabtay. 3 go'aan oo taariikhi ah oo xilliga ay qaadeen faransiisku waxay xadideen masiirkii dalkaasi. bishii Juun sannadkii 1940 golihii xukuumadda ee faransiiska magaalada Bordeaux ku shaqaynayay waxay ra'iisul wasaare cusub u magacaabeen Philippe Pétain si uu u hogaamiyo xukuumad cusub. ra'iisul wasaaraha cusub oo ka mid ahaa dagaalyahanadii hore ee faransiiska ee galay dagaalkii Vietnam waxa uu khudbad u jeediyey shacabka faransiiska waxaana uu jarmalka ka dalbaday xabad joojin. waxaan ka dalbaday cadowga inay joojiyaan cadaawadda. go'aankan waxaan qaatay anigoo ka dharagsan inuu dhaawacayo qulubta askarteenna, laakiin xaaladda militari ee taagan ayaa sidaa dalbanaysa. jarmalka dhankoodu waxay ku macneeyeen hadalka ra'iisul wasaaraha faransiisku inuu yahay mid uu ku dhawaaqayo inuu isdhiibay. dhankiisana jenaraal de Gaulle reer Faransa waxa uu soo gaaray magaalada London waxaana uu dhaleeceeyay xabad joojinta uu ra'iisul wasaarahoodu ku dhawaaqay waxaana uu khudbad u diray shacbi weynaha Faransiiska. waxaan aaminsanahay in sharafta faransiisku ku jirto in dagaalka la sii wado inagoo la soconna xulufadeenna.
bishii juun sanadkii 1940 Adolf Hitler waxa uu soo gaaray magaalada Paris isagoo u gudbay tuulada Cambe ee duleedka caasimadda ku taal halka uu yaalay haraagii tareenka ee lagu saxeexay heshiiskii xabad joojinta ee dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1918 heshiiska uu dhigayay in la jebiyay dowladda Jarmalka xilliga Adolf Hitler ahaa askartii Jarmalka ee dagaalkii koowaad lagu jebiyay socdaalka Adolf Hitler ee mandaqadaasina waxa uu muuqday mid uu ku xaqiijinayo argoosi uu hirgalay dalkiisa wafdiga Faransiiska halka kula kulmay Adolf Hitler waxa uu hogaaminayay General Kissinger inkastoo kulanka lagu eedeeyay Faransiiska in iyagu mas'uul ka ahaayeen bilowgii dagaalka haddana Adolf Hitler munaasabadda kama hadlin xilli yar kadib markii ay bilaabantayna waxa uu ka baxay goobtii kulanka saanadii military ay Jarmalku ka qabsadeen Faransiiska waxaa ka mid ahaa 2,000 oo taangiyada dagaalka 5,000 oo madaafiicda goobta 300 oo kun oo qoryaha fududa iyo ilaa 4 milyan oo xabadood oo rasaas iyadoo ciidanka Jarmalku ay mid ka mid ah baqaradii keydka ee ciidamada Faransiiska ka heleen keyd ballaaran oo dharka hoose ee ciidamada ah kaasoo ay ugu talagaleen dagaalada mustaqbalka gaar ahaan xilli qaboobaha intaa kadibna General Kissinger oo Faransiiska u qaabilsan wada hadallada iyo wafdi uu horkacaya waxay gaadheen magaalada Berlin oo ahayd xaruntii Jarmalka waxaana kulankoodii u horreeyay yeeshay gudiyadii labada dhinac ee qaabilsanaa hirgelinta heshiiska xabad joojinta Adolf Hitler oo doonayay inuu xafido nolosha ciidanka waxa uu xilligaa u ogolaaday Faransiisku inay kala qaybiyaan dhulkooda oo qayb ka mid ah ka dhistaan dawlad ay ciidanka Jarmalku dusha ka ilaaliyaan dhanka waqooyi ee dhulweynaha Faransiiska oo ku dhararan xeebaha badda Atlantika waxaa laga dhigay goob ay Jarmalku haystaan halka qaybtii labaad ee dhanka koonfureedna laga yigleelay xukuumad matasha Faransiiska oo ay caasimadeedu tahay Fiji xukuumaddii Fiji ee la dhisay qayb ka mid ah dhulkii Faransiisku waxay xilligaasi maamuleysay mustacmaradii daafaha caalamka ee ay gumaysan jireen Faransiisku sidoo kalena waxay gacanta ku sii haysay raxan fara badan oo maraakiibta dagaalka kuwaasoo ku sugnaa meelo ka fog dalka Faransiiska Jarmalku xilligaa waxay xukuumaddii Fiji ee Faransiiska ka dalbanayeen in saanada ciidamada badda ee dibadda ku sugan la tirtiro dhankiisana ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Winston Churchill oo ka warwarsanaa in maraakiibta dagaalka ee Faransiisku gacanta u galaan Jarmalka waxa uu ku amray ciidamada badda ee boqortooyada inay dusha kala socdaan iyadoo raxan ka tirsan maraakiibta dagaalka Ingiriisku gaareen dekedda weyn ee magaalada Algiers ee dalka Algeria oo ku yaalay mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ciidamadii badda ee Faransiisku waxaana ay ka dalbadeen inay iyaga ku soo biiraan laakiin ciidamadii Faransiiska ee saldhigga ku sugnaa waxay diideen dalabkii ciidamada Ingiriiska taasina waxay keentay in maraakiibta dagaalka ee Britain duqeyn ku bilaabaan saldhiggaas duqeyntaasi waxaa lagu dejiyey mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Faransiiska ee Algeria ku sugnaa waxaana waxyeello culus soo gaadhay 2 markab oo kale xilli halka lagu dilay ugu yaraan 1,300 oo askari oo ah badmaaxinta Faransiiska ee maraakiibtaasi saarnaa 2 maalmood ka bacdi duqeyntaasi xukuumaddii Fiji ee Faransiiska ee Jarmalku dusha ka ilaalinayeen waxay xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay boqortooyada Ingiriiska bishii Juulaay 1940 guud ahaan dalka Jarmalka waxaa ka qabsoomay isu soo baxyo lagu weyneynayo Adolf Hitler waxaana guushii dagaal ee uu ka soo hoyay duulaanka lagu qaaday Faransiiska ay Adolf Hitler xilligaa ka dhigtay mid aan lahayn cid mucaarad ku noqota siyaasadda uu Jarmalka ku hogaaminayay dagaalku samaahay mid sidaa ku dhammaaday